kala dheeray orod samaa haddii aad maqli jirtay waa Siciid Cabdullaahi Dani oo beeshii caalamku isu taagayso Puntland beeshii caalamku waxay u aqoonsanaysaa dawlad gaar ah inay tahay عجيب ودني وباش عالم كسو تاغيسو نيروبي با لوغلا kulmay waa dawlad gaar ah ninkii Muuse Juudaan ahaa oo sida caadada campaign ku bilaabay in caruurihii yaryara mar labaad la suqaariyo ninkii dagaal u hamuumaya waa laga dhalginayo waa ka dhalgaya ilaa nabad laga gaaray ama gala dagaalka ama orday yiraahdo soo waa laga dhalginayaa ku bishaarayso بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو ونكسن دمان ومدى الصوماليات قوب كستا يقور كستا جوكتان وبرنامج كيني افتمينتا حقيقوين كي أريمها بالشدة وضعالا بكالون كلنتا برت الدقل كيوتيوب كاكولينا عفتع بوردري يسيدو كلا برت الدقل كفيسبوك كاكولينا بوردري عاشق اوفيشال وحكا عصريا برنامج ودوك سوغانا سيشار قرسيد برنامج كلايك تكوبوب ميلفوك بوكارسيا هدي سلا تكو جوكتو شو تكو بدها هينا قلين بلا دي ايجي هدي اتكو تاني النبي كو صلي اللهم صل على سيدنا محمد دلكي ددكنا u soo ducay waa war degdeg ah iyo dawladnimadii ummadda Soomaaliyeed iyo qarannimadii iyo sharafkii iyo karaamadii dadka Soomaaliyeed lahayd oo haadaan dheer Xasan Sheekh Maxamed ku riday iyo kooxda fil qabiyaala joogta ninkii Siciid Cabdullaahi Dani ahaa warninka maaragta ninkaas wuxuu noqday jokerka siyaasadda ummadda Soomaaliyeed waxaana keenay waxaana sabab u ah oo halka gaarsiiyay waa musuqmaasuqa iyo dawlad aqoon la'aanta iyo munaafaqada iyo dibindaabiyada iyo qabyaaladda eegi Xasan Sheekh Maxamuud ku dhaqbayo saddex qodob baan rabaa inaan isdul taago qodobkeena koowaad oo Siciid Cabdullaahi Dani oo beesha caalamka gacanta ku dhigay si toos ah baan ku albaabku ka soo galay beesha caalamka deeq bixiyaalka qaramada midoobay United Nation ilma bahalkii ilma isku soo wada duub wax allaaleeyo wixii inaga shaqaysan jiray eegi oo dadka Soomaaliyeed iyo dawladnimadeena iyo qarannimadeena waxa way waxaawanayna sidana yeelana oo dhan baan ku oo sidii dawlad gaar ah Siciid Cabdullaahi Dani u qaabilaya waa magaaladii Nairobi ahayd dalka Kenya Siciid Cabdullaahi Dani oo halkaas socdaal ku maraya Nairobi tagay nimankii buu la kulmay ilaahay baan ku dhaartay fadhiga ka wada kacayaan fadhiga bay ka wada kacayaan kama inay la kulmayaan madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed waxaan ahayn u qaadan maysid ولا كلا شقتي ما مقشي وحنا وحسبب واه حلقي فرماجة شوقي ومديها الصومالية معارض يا محافظ بقى حلقي فرماجة شوقي دلك دولة أن هرت دليل هين أو أن إن الهين ما شفتوا قفك بين آدم كإيمان تري هذا أمة الصومالية بان أطلنا يانا إيما بدن بويلانا يا سببته قفكو مدح أبوس الرية إلا مدح أبو خاصي أنت أدعيسا ده دولة نما أقول قبيلة لوك هني 4.5 ku yimi dulmi iyo daalinimo ku yimi ayaa meesha isugu yimaada balse mar haddii madaxu xumaado waxa kale oo dhan baa xumaada farmaajo xilligii uu joogay waxaan maanta dhacaya ma dhici jirin in maamul goboleed intuu iska cararo uu dawlad caalam la soo kulmo eegay oo waxa weeye beesha caalamkii qaramada midoobay iska daaya xitaa kuwa ay soo dirsadaan ergeyga u yaqaanaan eegay ayaan wax allaaliyo wuxuu doono Soomaaliya ka samaysan jirin ومركا فرماجو فهمي واي دي جرا اد اورد iska tag waa baahanahay waa sax waa dhibaataysanahay waa sax dawladdu tabar male waa sax iyo hoog oo dhan baa ugu laakiin gunnimo qaadan maayo maanta marka Xasan Sheekh waxay dhashay musuqmaasuqiisii markuu ciyaalkiisii kiishaska u buuxiyay oo xaasaskiisii kiishaska u buuxiyay oo waxa weeye ilmaadeeradii kiishaska u buuxiyay oo walaalihii kiishaska u buuxiyay oo dalkii dhammaa ee ummadda Soomaaliyeed masiirkoodii Muqdisho ku soo koobay oo waliba dadkii Muqdisho in la laayay in gaajo u dilay waxay maraysaa Siciid Cabdullaahi Dani waxay taagan yihiin beesha caalam ninkaasi maamul goboleed buu haystaa waxa weeye 800 kiiloomitir oo saas ah iyo 1 kiiloomitir oo saas oo nabad ah oo nidaam ka jiro oo dawladnimo ka jirto oo booliis ka jiro oo military ka jiro oo amni ka jiro oo dibadda la seexdo buu ninkaas dawladnimada ninkaas u qalma ninkaasa dawladnimada u qalmaba bal Siciid Cabdullaahi Dani sidii madaxweynihii loo soo dhaweeyay beesha caalamka u wada taagan tahay bal hadda eegi meesha wax lagu kala goosanayaana waa Nairobi maaha waxaan wax lagu faana maaha waa gunnimo waa ognahay Nairobi in dhiigan lagu cabiyay laakiin yaa keenay man huwa sabab bal ina daawada Dani oo la baashirayo walaaga Ilaahay ku dhaashay ninka sida lagu kacayo albaabku markuu soo salaam bis la wada taagayaan
madaxweyne waa ku jecelnahay daniyow siciid soo baxayo leefleefka bal waxaa idinku eega bal waxaa hortiina yaalla waa beeshii caalamka wey isku soo wada duub waxa halkaa mariga beesha caalamka markaasaa dee mashaariicda xasan sheekh maanta waxaa dhacaya si cabdulaahi dani samaynayo ee maamul goboleedada kale samaynayaan isagaa sabab u ah waxa laga waayay wax kale iska daa war farmaajo xilligiisii wuxuu oran jirayba maamul goboleedada markuu siiyo yaa alla waxsiyada caalamka laga soo qaado rasiidka ay keenay buu jiray waxa Puntland cabdiwaligaas iyo daniya isku haysteen farmaajo rasiid bay haystaan rasiid mashaariicda aan ku dhiibo rasiidkooda si aan caalamka ugu sheegan dadkayga wax u qabto ay wax kale ugu helo xasan sheekhna waxa laga kari waayay war mashaariicda Puntland leedahay si halkaas u qabto ma maqli jirteen reer Puntland oo yaado farmaajo halkaas u qabtay mashaariicdii buu joojiyay oo caruuraha iyo dumarka iyo magarasay maatada waxa loogu sheekan jiray eegay oo media la soo fariisan jiray tii saxda ahayd baa xasan sheekh sameeyay halkaas u qabtay mashruuc mashaariic iyo dhan buu gooyay ilaa beesha caalamku tiri hadii aadan si degdega hadii aadan ugu siideyn Puntland iyo Siciid Cabdulaahi Dani mashaariicdiisa kursigaanu si degdeg kaaga tuurayna markaas uu gacma ilaa isagu xasan sheekh shisheeye uu wax ka dhageystaa qof islaam xitaa kama dhageysto gaal madow ama ha cadaada ama ha madow ajnabi ma yahay gaalna ma yahay isagu waa abeed sida ha shaqeeyada buusa u goojiya degdeg ku sii daabari waa ogeeyeen mashaariicdii inuu degdeg ku sii daayo maantana Siciid Cabdulaahi Dani in fi la Soomaaliya jirto in xasan sheekh madaxweyne yahay ilaahay bay ka tahay meel allaala iyo meeshu doono ka darsanaya mashruucu doono fushanaya beesha caalamkii baa sida kabaha ugu sida yaa waxa gaarsiiyay dalka maanta wixii aanu kala dagaalamayno 7 sanadood maanta inay rumoon yaa gaarsiiyay xasan sheekh maxamed siciidna waa kaade maanta waa baturinaya wuxuu leeyahay landheera laba maaha ninka raga libintiisa waa loo qiraa Siciid Cabdulaahi Dani wuu ka adkaaday xasan sheekh maxamuud sababtuna waxa weeye xasan dawlad aqoon maaha musuq maasuq qabyaalad iimaan la'aan labada indhood baa dollar loo saaray eegay masiir ninka fakaraya maaha nin qarannimo ka fakaraya maaha maanta haduu xasan sheekh nin intuu iska dhigi lahaa dawladnimada dhidibada u taagi lahaa ciidanka dhisi lahaa waxa weeye mashaariicda hagaajin lahaa wadanka dawladnimo iyo qab iyo hanaan iyo raganimo ay ka muuqan lahayd ilaahay baan ku dhaartay Siciid Cabdulaahi Dani qofka ugu horeeyay madaxa dhulka ugu dhuftaan noqon lahaa laakiin maanta Siciid Cabdulaahi Dani wax allaaliyo waxaan ku maago ma jirto xasan sheekh waa ninkii yiri 24 saacadood bay Puntland ku dumaysaa 24 saac bay Puntland lagu duminaya 26 sano wixii la soo dhisayay eegay baa la duminaya oo damcay hooyaday iyo walaalahay iyo reerkayga iyo ehelkayga dadkayga inuu qaxiyo oo xabad iyo bumbana dhex dhigo markaasaan marka Siciid Cabdulaahi Dani uga soo horjeesan karaa maanta kun jeer maanta waxaan taageersanahay Siciid Cabdulaahi Dani shalayna farmaajo Siciid Cabdulaahi Dani farmaajo aan taageersan sababtoo farmaajo wada saxaab ku socday waxa khaldameen dawladda waxba ka khaldamay dal burburay wey laakiin wax saxan buu waday Siciid Cabdulaahi Dani dib u fariisan lahaa isagoo in adeerkay oo markay qabyaalada noqoto xitaa Soomaalida Siciid Cabdulaahi Dani habeen ixigo haddana waxa la farmaajo hore u socdo Axmed Madow dib u deg Siciid Cabdulaahi dib u deg Cabdiwaligaas dib u deg iimaanka فاهمسا لكن ما أنت وحن كم معه دني ما أركو دني واقع وياتجي واتلاف صدق بلدي ما من قبل دني وحتاجيهن هذا واحد دوني سال دونينا رجس قرية واحد دوني سيد فأنا نقول دونينا ما أنت علو فرديا قارن نمدي دولة نمدي قبيلة دي أريا هوية وكع أريا فرماتشواي أريا صباح كلف لف maanta ayay u baahan tahay faa'iidadeedii eega kolay adigu direct xasanow adigu direct way sognahay ingiriiska guriga caruuraha iyo ingiriiska guriga ka dhisanay fahamisa turkiga tanzania kenya hatta daar qura hal daar baan u maleynayaa muqdisho ka dhistay oo daar dheer ah oo cali mahdi la tartamaya la waxay daarta ugu dheer buu hadda muqdisho ka dhistay laakiin هويه سمكي هويه شلو لها هويه وكعه ابقال وكعه اريا وعيش وكعه قاچي ما انت ودي منيا قاچو بان كوري ان ولا قرحنيا ان ولا حسوقي سي عبد الله دين وكا عالم باو تاغن ان لله وانا اليه راجعون قلب كره لباد نيكي لو رجري حسن عاشورتي و سو رغي magaalada muqdisho oog ba ka baxayso oog
oog baa ka baxaysa dadkii masaakiinta ahaa ee ganacsatada ahaa ee garablatada ahaa kiishka daqiiqda aad soo iibsatay $5 baa ku saaran marka aad dubtid oo aad roodhi ka digtidna $5 baa ku saaran marka waxa weeye maqaaxida la geeyana $5 baa saaran ilaahay baan idinku dhaarshay ayax baan maqjay ayaxu dheefshiid male moogta calool male ayaxu calool male Soomaaliya bahalka yar ee cayayaanka ayax liyaado calool male beerta uu soo galo iyo dooxada uu soo galo waxa uu cuno markiiba dabadu ka dhigaa markaasa waxay noqotaa sogsog bay noqotaa hadduu dooxa soo galo beer soo galo baan ku wiri eegay sac la gala feera qayax ma maqashay dhir qalalan baa ka soo hadhay hal mar bus indaa taritoor saas uu soo jiida waa diiranta xasan waa ayax muqdisho saakal dadkii waxay ku quraacdaan bay leeyihiin xabadda roolida taas oo qaado $5 baa ku saaran afka gelisay 5 baa ku saaran $5 haddaad dirtid moobilkaaga $5 haddaad ka dirtid 10 senti haf hal $2 baad dirtay 20 senti haf waa dhiig miirato waxaynu horey u aragnay oo u maqalnay wax caalam ka dhaca ma jirto miidiina wuxuu ku soo daayay hal qoraal wada qoraya hal qoraal baa la wada qoraya caalamka dhan bay cashuurta ka jirtaa caalamka nin walba wuxuu u sameeyay 10 ciwaan oo Facebook hal qoraal baa maraya meesha labada isbuuc soo socda baan ku wiri mudaharaadka muqdisho ka dhaca waad arki doontaan dadku markay mudaharaadana qarax baa loo dhiibiyaa nig soddon baa ku dhimanaysa waa lagu kala dareeraya xasan wuxuu yiri wuxuuna badaa naga daran hawiyow kaca hawiyaha aad shalay xuquuqdan u doodaya shaqada maanta qaybna laysay qaybna aad gaajo ku dilaysid maaha horta Soomaaliya waxaad ogaataan waxa qabyaalada liyaada faa'iidada ay leedahay intaas daliil idin ah ninkii intaa wax ka badan doonaya inuu wax ku fahmaana waa doqonna anagu wax ma fahansin karo qodobkeena saddexaad ninkii musajuudaan ahaa oo caynaba tago doonaya ciyaal yareer xaafadii wuxuu leeyahay ciyaalka soo ururi campaign ku galaya waa dagaalamayna gala dagaalka haduu yiri gala dagaalka dagaal baan ka dhirginaynaa waligeena kama guuleysan buu yiri bal hadda dhageysta ninkii dagaal u hamuumaya waa laga dherginayo waa ka dhergaya ilaa nabad laga gaarayo horena cid loo daadaasan jiray haddana daadaasan maayo oo yaalo ninkii qalbadu laayahay ma dad waalan buu sheekayaa dadku hor fadhiya ma dad caqliga la'aba ma caruur ba ma dad xasuustiga guurtay ba waligeena lagama guuleysan waligeena lama daadaasan war August 2023 wixii kugu dhacay adiga iyo mujrimiintii aad wadatay meelowdi 500 oo nin oo nolosha lagu qabtay meelowdi 243 technica oo laga furtay meelowdi wixii aad hubsidatay oo laga furtay meelowdi 1400 oo nin oo waxa weeye ciida ka hoos maray meelowdi oo cali harti ka dhargay waliga maalimaad guuleysan noloshaadii maalimaad guuleysan maal aad guuleysatay taariikhda kuuma taal wax waalan baa tahay ninkan waa xanuunsanaya baanas laakiin waxa ka daran dadkan waxa uu sheegayo war naga xishood xitaa ma oran karaan waliga maalin kama guuleysan bal isagoo la gala dagaalka haddayna soo doontaan dagaal waa ka dharginaynaa nalama yaqaan annaga waxa weeye waliga waa guuleysan jirnay kaliya waxa ka dhiman bootadii oo oran jiray adeerkaas siyaad bare taqalan bari marka ninkii baxsaday baan ahay oo gaani ninkii eriyaday baan ahay intii baa ka dhiman bootadii waa reebay uma oran kara de uftadiisi baa la qaawiyay ma gartay waa qaawiyay bal hadda eegayso wala dagaal baa ka dharginay laakiin ninkii ay la jeclaadeen maanta istuumada dagaal u helayahay ama gala dagaalka ama orday yiraahdo soo waa laga dharginayaa ku bishaarayso keenaba doonayna nabad laga waday qaranka waa la soo weeraray wuxuu jahli waayay mooyee waxba kala hari maayo qaranka waa la soo weeraray ninkii dagaal doonaya dagaalka waa ka dharginaynaa hal maqli jiray dibno gargariire iyo gangada waxa keena been hadalka xitaa waa ku dhigdhigaya ninkii dagaal raba galaba dagaalka yiraahdo ama ordo yiraahdo dagaal waa ka dharginaynaa hadda garaad jaamacad la yaa mar dhow ku fiiri fiintaas qabsanaysa garaad jaamac labadii bilood saddex bilood markuu grintaal ku ridaa maanta muuse juudaan baa hadlay ninkii dagaal galo garaad jaamac baan sugaynaa iyo hargeyso gilgilanta marka taariikhda iyo suugaanta iyo sooyaalka iyo wixii meesha ka dhacay iyo waxba baalaha iga yaacay kabaha caalamka kama dhicin ciidan dagaalamaya kabaha gacmaha ku qaata muuse juudaan adiga ka horow
ويلاش أذيرده واحد وي أتقبل لك كتاي يحرشن ويلاش يحرشن كصور ورسي يقبل حافظ كم ذا بها ويلاش جمعها كواكو قاطي عالم كمان عيدا جمعها كواكو قاطي وحاب الله يجي يعدق دق أذيره ويشيدها والله ميشان سكمري متى كلمة الله عليه مركل الذي قبتنا ووالتان مركي ظهرنا ما مير قبتان بلدي عينا ما دوش هذا بوكا بوطينية جماهير تحكم معها إنك سوق بطل أنا بيابنا هاي بدي جماهير تملها عاد مرمري سيدا عينا ما دوش هذا يمر بميل بات يقولش هبين كي مصر عساس وريجا موسى جودان حسوينا كراتشام قمتالك كراتشام بسوينا بوطلع كراتشام قمتالك اسمه سوينا بإذن الله تعالى يهرجسو قلقلنتا يوغ وضع برون الميديا وضع فردي بري وضع ركيزان موسى جودان وينك كان ولي قلقل مقولشن لكن dadkan ula hadlay anu garan waayay dadkan ula hadlayo anu ma fahmin dad waalan ba dad caruur ba xusuusti ba ka tagtay dadku ma xanuunsanayaan ma dhimirka waa fahmi laha ilaa hadda waa fahmi laha nin 500 oo ciidana laga hayo 500 oo tigniga laga furtay naf 26 sano wixii u soo dhuukunayay saacad laga saaray 1400 oo nin ciida laga hoos bariyay oo wali si hadlaya oo indhaadayg waa raasamaal Soomaalidu markay leedahay indhaadayg waa raasamaal waa sidoo oo kale muusow كل دجال سوق هذا بس أنا جاب أوجي أنا جالك أخوي مننا جورج مورجان ما نخوي مننا أدر مورجان جوريسا ما نخوي مننا والخير يبارك هدي الجنية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.